kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada saaxiibayaal warka xogta TV qodobada ku daawan doontaan waxa kamid ah guriga hooyooyinka iyo tiyaatarka qaranka oo cabsi qarax looga kala cararay dagaal qasaare geysto ka dhacay degmada Cabudwaaq wiil la sheegay inuu dhalay madaxweynihii hore ee dalka Uganda oo laga helay Soomaaliya ahlu sunna oo soo bandhigtay nuqul kamid ah heshiiska ay la gashay dawladda federaalka xiisad ka dhalatay qandaraas uu maalgeliyay imaaraadka uga taagan Boosaaso maamulka Puntland oo shacabka u diray fariimo digniin ah ciidanka Ciraaq oo laayay dad dibadbax halkaasi ka dhigayay iyo dadaal dib loogu bilaabayo wada hadalka Taliban iyo Mareykanka oo ka socda Pakistan xagaag taariikhdu waxa ay tahay 29 Oktoobar 2019 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada saaxiibayaal xaalad cabsi ayaa ka taagan guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho waxaana la fasaxay dhammaan shaqaalihii dawladda iyo ururka haweenka halkaas ka shaqeynayay kadib qarax la sheegay in la doonayo in la beegsado xaruntaas waxa sidoo kale la fasaxay shaqaalihii isxilqaan ee ka shaqeynayay tiyaatarka qaranka oo ka agdhow guriga hooyooyinka saraakiil ciidan oo ku sugan xarumahan ayaa inoo sheegay in la soo gaarsiiyay digniin amni oo ah in weerar qaraxa ku socdo guriga hooyooyinka digniinta ayaa la sheegay inay ka timid xafiiska amniga ee Soomaaliya waxa hadda dibadda loo saaray ciidamo boolis ah iyo koofiyad cas ah oo aad u adkeeyay amniga walina ma jiro war rasmi ah oo dawladda ka soo baxay oo arrinta ku saabsan guriga hooyooyinka ayaa waxa degan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaana sidoo kale xarun u tahay ururka shaqaalaha rayidka markaana Galgaduud dagaal qasaare geystay ayaa ka dhacay degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud qasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay dagaal laba maleeshiya beeleed maanta ku dhex maray degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud dagaalka ayaa yimid kadib markii labada maleeshiya beeleed isku qabsadeen dhul ku yaala banaanka degmada Cabudwaaq gaar ahaan xaafad lagu magacaabo Ceel Gargaar oo ah duleedka bari Cabudwaaq waxaana taasi ay sababtay in ay wada dagaalamaan dagaalka ayaa dad ku sugan degmada Cabudwaaq waxay sheegeen in ku geeriyoodeen hal ruux laba kalena ay ku dhaawacmeen wararku waxay intaas ku darayaan in goobta dagaalku uu ka dhacay ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa booliska iyo nabad sugidda Galmudug isla markaana ay kala dhex galeen maleeshiyaadkii dagaalamay wararkii ugu dambeeyay haatan laga soo gaaray Cabudwaaq waqooyiga gobolka Galgaduud ay waxay sheegayeen xaaladdu ay tahay mid degan isla markaana la kala dhex galay maleeshiyaadkii dagaalamay ahlu sunna ayaa soo bandhigtay nuqul kamid ah ay la gashay dawladda federaalka Soomaaliya madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan kana mid ah hoggaanka ahlusunna wal jameeca ayaa soo bandhigay nuqul kamid ah heshiiskii dhexmaray wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo maamulka ahlusunna heshiiska ka kooban dhowr qodob ayaa waxa ugu muhiimsan ahlusunna laga siiyay xildhibaanada Galmudug ilaa 35 xildhibaan halka 54 kalena ay soo xulayaan odayaasha dhaqanka heshiiska oo dhacay bishii Juun ee sanadkan ayaa waxa sidoo kale ku jiray in ahlusunna iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay si wada jira u soo magacaabaan guddiga farsamada ee doorashada Galmudug heshiiska ayaa waxa ku saxiixan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dawladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye Qarafaan waxa muuqatay in dawladda federaalka ay ka baxday heshiiska ay la gashay ahlusunna taa oo sababtay xiisad ka taagan Dhuusamreeb wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dhawaan magacawday guddi ka kooban 13 xubnood kuwa oo ah kuwa farsamada doorashada Galmudug waxaana taas ka hortimid ahlusunna iyo qaar ka mid ah musharaxiinta taagan hoggaanka qabashada xilka madaxweynaha Galmudug oo ku eedeeyay dawladda inay ka baxday heshiiskii lala galay ahlusunna madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa warqad ku qorneed luqadda Ingiriiska u diray beesha caalamka wuxuuna raaciyay heshiiska dhexmaray dawladda iyo ahlusunna wuxuuna warqadda ku cadeeyay in dawladda ka baxday heshiiskii la wada galay wiil la sheegay inuu dhalay madaxweynihii hore ee dalka Uganda Abiy Amin ayaa laga helay Soomaaliya wiil la sheegay inuu dhalay madaxweynihii hore ee Uganda Abiy Amin daada oo muddo la baadgoobay ayaa laga helay Soomaaliya sida uu qoray wargeyska New Vision ee ka soo baxa Kampala Sheekh Abdullaahi Abiy Amin oo haatan qof weyn ah ayaa waxa aqoonsaday ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM kuwaas oo kolkii dambe baray xildhibaanada reer Uganda oo dhawaan booqday Soomaaliya mudanayaasha oo toddobaadkan lagu soo dhaweeyay magaalada caasimadda ay Muqdisho ayaa kormeer ku kala bixiyay saldhigyada muhiimka ah ee xogaga Uganda ka socday ka joogan dalka sharci dejiyaasha iyo Abdullaahi ayaa ku kulmay deegaanka Carbiska ee duleedka
magaalada caasimadda ah ee Muqdisho halkaasoo ciidamada Uganda ay ku leeyihiin xero iyo isbitaal. wafdiga xildhibaanada ayaa waxaa hogaaminayay Charles Ukunda oo ah wasiir dowlaha difaaca Uganda kaasoo kamid ah xubnaha la kulmay Cabdullaahi ee sawirada la galay. sida laga soo xigtay warbaahinta, Cabdullaahi ayaa haatan xubin ka ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan militariga ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose. hooyadii oo Soomaaliya kana soo jeeda Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyo aabihii oo reer Uganda ah ayaa wada dhalay 2 caruur ah oo Cabdullaahi kamid yahay. dhowr su'aal ayaa soo ifbaxaya kadib arrintan, waxaana kamid ah qaabka ay markii hore ku kulmeen, sida ay isku waayeen kuna lumay Cabdullaahi iyo haddii laayo shakhsi kale. sidoo kale ma cadda in sheegashada Cabdullaahi ah inuu dhalay madaxweyne Idi Amin lagu xaqiijiyay dheecaanka DNA-ga iyo in kale. weligay ma arag qoyskayga oo ku nool Uganda, ayuu yiri Amin kaasoo wareysi siiyay wargeyska afka dheer ee New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala. Cabdullaahi oo haatan xaas iyo caruur leh ayaa waxaa la fahamsan yahay in loo jeediyay in loo duuliyo Uganda si uu halkaasi ugu qaato inta noloshiisa ka dhiman. Angola oo farxad ka muujiyay helitaanka ayuu u ballan qaaday inuu ku xiri doono reerkiisa oo uu ka mid yahay General Taban Amin oo ah agaasimaha amniga gudaha Uganda. madaxweyne Idi Amin Dada oo dadka reer Uganda ay u yaqaanaan dilaaga Uganda kaasoo geeriyooday sanadkii markuu ahaa 2003 wuxuuna xafiiska joogay intii u dhaxaysay 1971 ilaa 1979. xiisada ayaa ka dhalatay qandaraas uu maalgeliyay Imaaraadka oo ka taagan Boosaaso. waxaa laga dareemayaa magaalada Boosaaso xiisad ka dhalatay mashruuca saayisiinta ciidamada badda Puntland oo Imaaraadka Carabtu maalgeliyo. madaxweyne Dani iyo xubno ku dhow oo ka tirsan koox lagu magacaabo Aranjan ayaa khilaafka qayb weyn ka ah, waxayna doonayaan in laga wareejiyo gebi ahaanba qandaraaska saayisiinta hay'adda Puntland oo ay leeyihiin ganacsato u badan reer bari. saayisiinta ciidamada badda Puntland waxaa maalgeliya oo dhaqaalaha siiya dowladda Imaaraadka Carabta. khilaafka dhowrka bilood ka dhex taagan hay'adda saayisiinta iyo Imaaraadka Carabta ayaa abuuray jawi xiisad saansaan dagaal. madaxweyne Dani iyo dadku waxay u xulduubayaan in hay'adda ay ugu wataan la siiyo qandaraaska saayisiinta ciidamada badda Puntland oo marka magacooda loo soo gaabiyo loo yaqaan BMPF. waxaa la isku fahmi waayay dhowr asbuuc ka hor in lagu qanciyo ganacsatada reer bari inay ka tanaasulaan qandaraaska saayisiinta ciidamada Imaaraadka gacanta ku hayaan ee BMPF. waxgaradkii odayaasha gobolka Bari ayaa uga digay madaxweyne Dani iyo xulafadiisa inay xiisadan ay isku rogto dagaal ay dowladda Imaaraadka Carabta gadaal ka riixayso aysan Boosaaso ka ridin. waxay sheegeen sababta loo doonayo in qandaraaska looga qaado ay tahay mid qabyaaladeysan. odayaasha ayaa ka dalbaday Imaaraadka Carabta inuu joojiyo dagaalkii colaadda uu ka dhex abuurayo deegaanka gobolka Bari. markaan waxaan ku guda jirnaa wararkii Puntland. wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland ayaa maanta soo saartay digniin degdeg ah oo ku socota dadka degan dhanka xeebaha oo la sheegay inay ku soo wajahan yihiin roobab iyo dabaylo xoogan. wasaaradda oo fariimo digniina dadku u dirtay taleefanadooda ayaa ugu baaqday inay ka fogaadaan xeebaha iyo meelaha togaga ah si looga baaqsado waxyeelo ka dhalata duufaanadaasi laga cabsi qaba inay ku dhuftaan bariga maamulkaasi. sidoo kale warkan ayaa lagu sheegay in meelaha ugu daran ay yihiin gobolada Sanaag, Highland, Gardafuur iyo Karkaar oo hoostaga maamulka Puntland. sida ay sheegtay wasaaraddu waxay digniinta timid kadib markii qoliyaha saadaasha hawada ay soo saareen wargelin in laga fogaado deegaanadaasi. wasaaradda arrimaha gudaha waxay wargelinaysaa dadka degan xeebaha Puntland gaar ahaan gobolada bari sida Sanaag, Highland, Gardafuur iyo Karkaar inay dabaylo xoog leh oo roob wata ay inagu soo fooleeyeen sida ay sheegeen qoliyaha saadaasha hawada. maahan markii ugu horeysay uu Puntland digniin ka soo saartay xeebaha maamulkaasi oo marar badan ay ku dhufteen dabaylo dhaliyay khasaare xoogan. ciidanka Ciraaq ayaa laayay dad dibadbax halkaasi ka dhigayay. ciidanka ammaanka Ciraaq ayaa saacadii hore maanta rasaas ku furay dad dibadbax dowladda looga soo horjeeday ka dhigayay magaalada barakeysan ee Karbala. waxaana dhintay ugu yaraan 14 qof halka ay boqolaal kalena dhaawacmeen. dibadbaxyada dib u soo cusboonaaday ee dalka Ciraaq ka socda waxaa looga soo horjeedaa musuqmaasuqa, shaqaale la'aanta iyo adeegyada dadweynaha oo liita. wadaran 250 qof ayaa ku dhintay muddada bisha ah ee mudaharaadyadu ka socdaan magaalada caasimadda ee Baghdad iyo magaalooyinka
kale oo dhowr ah magaalada Karbala waxay ciidan ku rasaasayeen dad ilaa xalay banaanbaxay ilaa caafimaadka magaalada waxay sheegeen inay dhaawacmeen 865 qof ma jiro wax war oo ka soo baxayadaha dawladda oo ku saabsan waxyeelada ciidanka lagu eediyay inay u geysteen dadka rayidka ah daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen xogta TV haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino